raysanaya wuu ka raysanaya maxaa kale oo jirta qolo kale u gacan haatinaysa oo cunugaaga u yeeraysa ayaa iyaguna jiro halka u taagan ma u malaynaysaa qolada da'diisa oo macsiyada ka shaqeynaysa inay ku leeyihiin wari aabaayo hooyadaba soo caasiday orod u noqon inuu iska sameeyo wuxuu dadka ku arko oo sameeynaya waxa la qofkii walba wuxuu sameeynaa isagana iska sameeynayo waa inaad u sheegto oo tiraada anaga diin baan leenahay anaga akhlaaq baan leenahay kal jargaaraan leenahay qiyam baan leenahay waxa jira diinteenu ay ogoshayo waxayna ogolayn marka waxaad aragtaba waa idinka arkay oo dhalinyarteeni markii la keenay markii arkeen dad madow oo surwaalkii jiidaya oo maxaan ku raadin surwaalkii uu ka dhacay iyagina way iska rideen waxyaaba igu yaab badnaa oo marna halmaamaynin waxa kamida maalin dhaweyd baa waxaan arkay nin weyn oo Soomaali ah oo wadanka joogay muddo aan sanad dhanayn sanad way ka yartahay waa inaad ogaataan muddo aan sanad dhanayn buu wadanka dhan joogaa wuxuu arkay nimankii wadanka u dhashay oo cadcadka u badan waliba oo dharka iska bixinayo shaatiga iyo finaadiba iska bixiyay intuu shaatiga iyo finaadi iska bixiyay buu suuqa soo dhaxmaray waa nin Soomaaliyeed oo diintii garanaya oo wadanka sanad wax ka yar buu joogaa finaad la'aan isagoo waa nin weyn yuu suuqa soo dhaxmaraya ninkaas maxaad u malaynaysaa wax loo sheegayna ma jiro kuwa wuxuu arkay in shaatiga iska bixiyay isna uu iska bixiyay marka ilmahaaga waa inaad u sheegto inayna waxyaabaha noocaas ku kadsoon waxa la yiraahdo mal'ul firaaq wala la yal ilmuhu hadii uusan waxba haynin waa in waqtigiisa la buuxiyo waqtigiisa in la buuxiyo way maxaan ka wadaa ilmihii daraasiya wax ma dhigto ilmihii masaajid ma aado ilmihii shaqo kuma hayo intaas oo dhan haday soo baxdo ilmihii waxa way firaaq baa soo baxaya xumaan iyo wax kale aadaya waa inaad buuxiso way xilliga isaga waxaad uga faa'iideysan leed adaa yaqaan wax fiican gali oo xilligaas isaga ka faa'iideyso waa in loo raadiyo dad fiican oo asdiqa uu ka dhigto ilmuhu oo aan adduunka dhan iyo dadka dhan lagu sii dhaxdaynine qayb gaar ah la yiraahdo qaybta ka dhigo qaybaad maartay asdiqa ka dhigato waxyaabaha loo baahan yahay in rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam siiradiisa wax laga baro ilmiga sharciga wax laga baro ahkaamta buluuqa la baro war ilmuhu markay qaan gaaraan hooyadii aabbu waxba uma sheegaan ogaado oo waliba waxyaabaha la arkay culimadaaba meelaha wuxuu sheegtay hooyada iyo aabbuhu ilmaha uma sheegaan gabadhaadu haday qaan gaarto qof dumar ah tahay maxaad ugu tala gashay way qaan gaaraysaa bari gabar weyn weey wadankaana la jooga waxa weeye qashinkaad aragteena la iska cunaa marka gabadhii iyadoo yar oo 10 jir laga yaabo inay qaan gaadho maxaad u sheegtay ma u sheegtay haday gabadhu qaan gaadho oo hooyo arrimo noocaas aad aragto waxa weeye diinteena ka mid tahay waa cirqun katabahu Allahu ala banaati aadam ilaahi ba arinta keenay oo dadka oo dhan ba arka waa wax nijaas oo soo kala ah waa inaad ka tahaara qaadato waa inaad salaadii joojiso waa inaad soomkii waxaas ma u sheegtaan mise ilmaaga waxa tiraahdaa waxba ogeysiin marka iyaduna isku aragto umurta noocaas ee qaan gaadho gabadhiyo ama ooyi baad arkaysaa sida la sheegay ama gabadhiyo ooyaysa ama gabadhiyo ka cararaysa oo adiga ku imanayn soo ma jeed wiilkii oo kale haduu qaan gaaro aabuhu ma u sheegaa oo ma tiraahdaa wax ixtiraam la yiraahdo baa jiray xadda noocaas war ma taqaan hadii jirto waa inaad saas waa inaad aad qabaysato marka dadka waa in wax loo sheegay ilmaha war ilmuhu ma soo dhashaan iyagoo wax yaqaan in wax loo sheegay u baahan yihiin marka umurta noocaas waa in lagu tarbiyeeyo waxyaabaha cadawga iyo ay wadaan waa in ilmaha loo sheego waqtiga sidoo ilaalin lahaa waa in ilmaha loo sheego cibaadaadka waa wanaagsan iyo sidoo uga faa'iideysan lahaa waa in ilmaha loo sheego dadka qaar baa tasawur aragtida cibaadada qaar bay waxa uu fahamsan yihiin in salaada la tukado soomka la soomo oo xajka la tago oo zakada la bixiyo intaas kale inay tahay hadduu arko ilmihiisi oo dad wax ka reebaya oo dad wax amraya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar wuxuu leeyahay maxaa ka galay calayka bi nafsika adigu naftaada un hayso naftaada ka adkow maxaa dad kale ka galay adiga waqti waxa la joogaa dad la isku lama hadlo war cibaadadu intan ma aha taasa ka fiican aad ka celinaysa ilmaha dadka waxa loo sheegay waa inaad u dayso wala la yaal ilmuhu waa inay qanaacad qabaan al-qanaa'at al-muta'assila fi an-nafsi waxa kamida gabadhu haday aragto adigu wal xijaabantay mesela gabadhaadii yarayd xijaabka haday markii ku aragto ay aragto malayso hooyadu dhar waaweyn oo qaadato inuu jiro dharka waaweyn in la iska qaato waa inuu qanaaca jirto xijaabku inuu yahay wax diinta kamid ah oo inaad u sheegto oo tirada aayad ilaahi baa saasa ilaahi subhanahu wa ta'ala fi surati al-ahzab iyo fi surati an-nur ayuu uga hadlaya aadaabta dumarka si gaar ah looga hadlay marka waa inaad u sheegto
oo ayna noqon wax la yiraahdo caade wax diin ay arintii ay noqoto waa in ilmaha walaalayaal waxaad ka digtoonaataan qodobka noocaas waa inaad ku baraarugto waa inaad ka digtoonaato wax la yiraahdo tanaaqud isburin ilmahaaga waxbaad maanta u sheegtay berina wax kale aad u sheegtay muxuu ku leeyahay midkan iyo midkan waa ku wareeraya ilmihi yaa sax ama kana sax mise kana sax ma uu kala garan karo ilmihi tanaaqud ku sameyn haddaad ilmahaaga ballan u qaado qodobkaas waa muhiim ilmahaaga haddaad ballan u qaanto ballanta waa inaad fuliso waxaad tiri hooyo iyo aabbo berri meel heblaan idin geyn lacag baan ku siin haddaad iskoolka wax fiican ka keento waxaan kuu soo gaday dharka noocaasa iyo wax baan kuu iibin wixii inaad samayso wey haddii aad ka baxdo beenaalaad tahay hooyadiina beenalay wey soo saas ma beenaalayaal baad tihiin ilmahana been baad u sheegteen iyagina been baad ku tarbiyayseen beenta aad ku tarbiyaysay unbuuna berri baranayaa hala yaabin isagan ilmaha Soomaalida arag waxyaabaha la arkay la yaab kale waxa kamid ah aabiyo hooyo ilmaha ku dhaay hooyo waxa ay soo gad insha Allah waa lagu gadi doonaa berrina insha Allah berri insha Allah maalin dambe wuxuu leeyahay hooyo insha Allah iga daaye waxaad ii qabanaysaa ii sheeg muxuu ogaaday inaad been sheegayso oo waxa sheegay dhan waxba ka jirin walaalayaal maxaan u sheegi karnaa ilmaha hadaan beenta noocaas u sheeg war ilmaha waxa aad u sheegaysaan iyo ballanta aad u qaadaysaan ha loo fuliyo oo u fuliyo ilmaha waa inaad samayso wax la yiraahdo taqwiyatu silati baynaka wa bayna al-awlad ilmahaaga iyo adiga xiriir weyn waa inuu idinka dhaxeeyo xiriirkaasoo marna aabba iyo hooyo tagi kara marna saaxiibtinimo tagi kara gabadhaadu waa inay kuu sheegan karto waxyaabaha ay rabto waa inay kaala tashan karto waa inay xitaa umuuraha ugu adag sida mesela guurka oo kale gabadhu intay hooyada u timaado ay oran karto hooyo waxaan rabaa nin hebel inaan guursaday ka waranseedo aragtaa wiilku waa inuu aabbi u yimaado arrimaha noocaas kala tashan karo haddaad weligiiba war ma haddaad gaadhay inaad hadasho haddaad tiraahdo ka war ma hadda badaata tatakalam haddaad bilowday miyaa inaad adna ii hadasho oo umuurta noocaas maanta aad iga hadlaysaa markaana ushaadu gurigay kugu jirtaa iyo waxa sameyn lahayd iyo fiiladaadii iyo jeedalkii waxa ilmaha ku dili lahayd war ilmaha laga fogeeyo almuthiraat aljinsiyya waxa la yiraahdo ilmaha waxa kicin kara sida aflaamta qaawanaantu ku jirto sida majalooyinka iyo waxyaabaha magaziinka iska qaawaneed aragteen sida waxyaabaha ay waxa noocaas oo kale internetkii oo qaybta qaawan ilmi waxaas oo kale in laga ilaaliyo ayaa loo baahan yahay ilaa qofkii hadii waxyaabahaas uu arko wuxuu isku dayayaa sidoo ku gaari lahaa inuu sameeyo xoolaha aad bixinayso ilmahaaga waa inaad roobka uga dhigin maxaan ka wadnaa ilmaha wax la wuxuu u baahan yahay hadaad siisa ka war baabuurka ugu dambeeya magaalada hadaad sanad walba u soo gadda ka war 2006 2007 hadda la galaya kii hore iska bedel hadaad saa wado adiga dhuminaya ilmahaaga waxba u tari maysid waa inaad ogaato waa qaab tarbiya oo lagu dhumiyo ilmaha ayay ka mid tahay walaalayaal waa inaad ilmaha ka dhigin mustaqbalkiisa dhan iyo wuxuu ku nool yahay mustaqbalkaaga fiirso daraasadaada haddaad ku najixi weydo haddaad guulka keeni weydo iskoolkaaga waad fashilmaysaa ilmihii meesha lagu xidhay ma ujeedaa wixii si dhan waxaa lagu xidhay daraasadan u dhigta keliya war ilmuhu wax badan buu ku guulaysan karaa ma u sheegtay diinta diintaas haddaad qur-aanka haddaada baranin haddaada salaadii baranin haddaada axaadiista rasuulka baranin haddaada akhlaaqda islaamka baranin waxaa ma u sheegtaa mise mustaqbal fuyuujarka waxa la yiraahdo annagu maxaan dadka ugu sheekaynaa hebel waa nin mustaqbal fiican baa lagu leeyahay mustaqbalka fiican ma taqaanaa gabadhaasi waa gabadh mustaqbal wanaagsan fuyuujarkeedu waa meel fiican buu ku socdaa muxuu yahay ma taqaanaa jaamacad college bay dhamaysay ama college buu dhameeyay waa intaa mustaqbalka laga hadlayaa war mustaqbalku intaa kaliya ma aha ee waa ilmaha yaan lagu soo dayiqin meesha yarta walaalayaal waxaan si cujaala oo degdega u dul maraynaa ilmaha tarbiyada muxuu ku qaadan karaa waxaasi waa tarbiyadii fiicneed oon ka hadalay muxuu ku qaadan karaa tarbiyada wanaagsan arinta ugu horeysa waa qudwa waxa la yiraahdo qudwa maxaa la yiraahdaa waa dayasho wanaagsan gabdhaha hore ha soo maraan kuraasta hore way banaan tahay hore ha loo soo la soo mari karaa jazaakumullahu khayr qudwa waxa la